بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن أو وناكسن دينهان بمال كستو أجوكتان يسكستو نوضا ونيسان كسو دوادا برنامج كان يقاركا وان ديردا قصارين وارمها الدروشوين كصوماليا ومالميه اللي صودا في دورشدا ضد بدن أي ليهين قابس باكوي مدة barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigu waa bari waxaan marti ku ah nabadoon bedel jaamac xirsin laangare oo kamid ah nabadoonada Soomaaliyeed iyo sidoo kale nabadoon Muuse Sheekh Cabdi oo isna qayb ka ah nabadoonada inta badan ka hadla arrimaha siyaasadda labadooda ayaan soo dhaweynayaa marka hore ugu horeen ku soo dhawaada barnaamijkani oo doorashooyinkan kaga hadlayno ee ka baxaya TV-ga M24 TV waa dhowna aad baan u mahadsantahay waa dhowna su-aasha ugu horeysa aan idin weydiinayo waxay tahay maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho sidaan la wada socon waxa ka socday doorashooyin oo xubnaha gobolada waqooyi ay ku dooranayeen xildhibaanada inkastoo doorashadu ay gaab ku imaaday marka aragtidiina la xiriirta sida doorashada ay xilligan dalka looga filayay inay ku dhacdo iyo gaabiska ku yimaaday maxay tahay su-aashaas waxaan weydiinayaa nabadoon bedel jaamac xirsi laangare nabadoon ay ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim adar waa dhowahay telefishinka M24 waa mahadsantihiin waa idin mahad celinayaa markaan u soo noqdo su-aashaada doorashadu waqti kasta oo ay dib u dhacdo waxbaa ka sii xumaanaya mar kasta oo doorashadu dib u dhac ku yimaadaba way xumaanaysaa ceebteedaa soo baxaysa daldalooladeedaa soo baxaysa sideedana Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ajifar dhiman lama tuso waxay ku fiican tahay in wixii inta la dedejiyo lagu kala baxo xalaal iyo xaraan wixii doonaha soo baxeen in intay dedejiyaan lagu kala baxay ku fiican tahay waxa marka mar walba godoloolada keenaya oo dhibaatada keenaya waa doorashada maartay dib u sii dhacaysa kol walba habsaamaysa waqtigeedii ka dib dhacaysa taas horta keenaysa dhibka okay waxa soo haray marka dadka isku haysta doorashada Soomaalida horaan ugu mahmaahay anigu hadda ka horna waa ka hadlay waxa leeyahay xoolo tuugan ninka saddexaad baa iska leh oo see ku yeeshay laba nin baa wax soo xadaysa waa isku qabsanayaan inuu midba midka kale ka fursadu doonaya nin saddexaad bay ula tagayaan waxay leeyihiin noo garqaad markaasuu leeyahay fariista waaye intuu wixii ka qaado asagii baa kala goosanaya doorashadana hadda waa ninka saddexaad baa iska leh waa la xaday yaa laga xaday shacabka laga xaday qof iyo cod inaanu wax u dooranno ninkaan rabno la soo baxna annaga xaq u lahay waa nalaga xaday maamuliinta marka madaxda dalka xukunta iyo kuwa hadda xilka dibadda ka taagan waa isku qabsadeen waxay yidhaahdeen aan u dhiibanno maamul goboleedyadiina waa sii xadeen waa sii dadbadeen saas markay tahay anigu waxaan la hadlayaa marka laba qolo wax saddexaad oo lala hadlaa meesha ma yaal maanta awoodda dalka wuxuu ugu jiraa gacanta maamul goboleedyada doorashada ayaga faraha laga geliyay sababta aad ku leedahay maxay tahay maamul goboleedyada iyo doorashadu gacanta ugu jirtaan waxa weeye halkaas lagu heshiiyay madaxweynaha waa tii faraha looga baxshay oo dawladda la yiraahdo asagu maadaama musharax iyo faraha looga qaado yaa la hogaaminayaa leeyahay shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha gudoomiye waa toddobadan nin bay saaran tahay xilkii Soomaaliya oo dhan toddobadoodii baan la hadlaynaa marka ra'iisul wasaaruhu marka xamar buu joogaa amar buu leeyahay asagu xildhibaan ma soo xulayo odayna ma soo qorayo nimanka xildhibaan kale soo xulayo odayga soo qorayo ergada keenaya waa maamul goboleedada nimanka doorashada haysta waa iyaga nimankay ka soo baxaysaa waa iyaga awoodda dalka maanta nimanka haysta waa iyaga aad u maasan tahay nabadoon Muuse wuxuu leeyahay nabadoon bedel jaamac xirsi laangare doorashada waxaa caqabad ku ah maamul goboleedyada dalka arintaasi ma aaminsantahay adiga bismillaahir rahmaanir rahiim sidoo kale waa idin meediyaha mahad celinayaa kalama duunin aniga asagu midda labaad doorashadu waxa la yiraahdaa hagar lagu hormara doorashada hagar baa jirto hagar haddii alla ku roon yahay dadkii loo aamini ama loo xil saaray aan ahayn ayaa wali ka jirta dalkana haddii ilaahay idma doorashadaas waa dhaci doontaa waana dhacaysaa waana lagu dhex jiraa waxaan aaminsanahay doorashada in culayska badan oo haysta uu yahay maamul goboleedyada inkii loo xil saari oo gacan saddexaad ay ku dhex jirto sheegays bal fasiraadka bixin dad badan waxa laga yaabaa in si kale waa ka culayska ka jira doorashada maxay bixiyeen culayska waxa weeye aan leeyahay shanta maamul goboleed nin walba xilkiisa hadduu guto oo sidii loo doono u guta culays ma jiri lahayn
maadaama wax badan oo afkaaryo ah oo maamul goboleedyada ka dhex jira ay ka dhex jiraan qolana ay leedahay hal gobol aan rabnaa qolana ay leedahay laba gobol culays noocaasi oo isfaham la'aan ah ayaa doorashada haysato waan gartay nabadoon bedel jaamac xirsilaan gare nabadoon muuse aragtida uu ka dhawaajiyay ama hadalka uu ka dhawaajiyey waa runtii waa inoo muuqataa horta anigu carqalad baa ciddaasa carqalad ku ah doorashada meli doorashada laakiin awooddeeda maamul goboleedada haysta siyaasiyiinta dalkeennana waan kaaga warram aniga aad ii dhegeyso su-aashaan kaaga jawaabi doorasho hagaagsan oo dimuqraadi fiican oo shacabku u dareero qofkay doonaan ay doortaan siyaasiyiinta dalkeennu ayagaa iska diiday midba dawlad shisheeyuu dabada kula jiraayo doolar buu ka qaato dalkiibuu ka xaraashay dad bantay ka jecel yihiin ma fahanta horta siyaasiyiinta dalkeennu waa kuwa ayagaa isku haysta doorashada anigoo aan helo iyo anigu aan helo ma fahanta horta awoodda waxaa iskale maanta doorashada dalka maamul goboleedada marka waxaa noo quman bahashii maadaama ay musuq maasuq iyo xaaraan iyo corruption miiran tahay bal haddana inay u ekaysiiyaan wax doorasho u eg inay u ekaysiiyaan aad ii fahan oo waa laga cabanayaa cabashada dadku ka cabanayo ay bal boqolkiiba 50 qancin karaan ma fahanta intaasaa la habboon doorashaduna saas ku soo baxdo nimankan musharaxiinta ah marba baaq soo saarayana waxaan leeyahay nimayow shacabkana ha ku ceeboobina idinkuna ha ceeboobina joojiya waxa aad wadaan soomaaliya maanta dagaal uma baahna nabad bay u baahanta ya kuwanna waxaan leeyahay walaalayaal cabashadii baa dadkii ka badatay muraayad baa laydinka dhex daawanaya waa laydin eegayaa taariikhdaana qoraysa nin walba maanta wuxuu sameeyo berri buu taariikhda gelayaa ya dadka u cadaalad fala aad xukuntaan saasaan iyagana leeyahay waa gartay maxaa hakiyey doorashooyinkii way socdeen doorashadii aqalka sare way soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka socotay markaad fiirfiiriso halkay wax ka qaldan yihiin sidees wax lagu sixi karaa isleedahay doorashada dhaqaalihii lagu qaban lahaa baa maqan beesha caalamku dhaqaalaheedu waa ceshatay dowladduna dhaqaalo ma hayso bilaabay tiri aan idin siinne waa la bilaabay aqalka sare soo dhammeeyey tiri waa la dhammeeyey gobolladii haddana golihii dhexaa la bilaabay shilinna may bixin maxaa lagu qabtaa marka doorashadii qarash bay u baahantahay haddaba waxaad leedahay qarashaadkii loogu talagalay aan la waayay saasay ku hakatay dad badan laakiin waxay aaminsan yihiin in doorashada sababta golaha shacabka ee gobolada waqooyi muqdisho ka dhicleed u hakatay waxaa qayb ka ahaa ergooyinkii wax doortay inaysan ahayn ergooyinkii saxda ahaa oo dowladda federaalka ee Soomaaliya igu habeen ay ku sameynayso oo sicid oo ergooyinka ku saabsan arrimahaas ma ku adeero aniga may maqlaysaa shalay ma lahaa ciidamadii aalatiriin la geeyay dagaalkii Tigreeb ay ku baaba'een Soomaalida hooyooyinkii baa ooyaya maanta maaragtay ragle ciidamada yaan la keenin yaan waddanka la keenin annagaana lagu laynayaa maaragtay ragle Soomaaliya u roon ma shisheeyaa laga keenay nimanka xamar wax ku doonto ergada xagee ka yimaadeen ya adigu ii sheeg beesha laga keenay laakiin ergooyinka hore wax ergada saxda ah waa midda nooceeya waan garanaynaa oo jufooyinka laga soo qoray laakiin waxa la isku haysto waxay tahay ergooyin aan jufada xilwaanka cidiisa in la keenay warbahashu waa basasha haddii kolba in la sii jeexo waxbaa sii haraya qabyaaladdu waa basal nimanku isaaq ma ahaayeen mise ma ahay dadku dadku isaaq imisa isaaq joogta maanta xamar adigu ku tiri koobayin 20 kun waa ka badan yihiin dadka jooga yaa ku xaqiijiye anaga oo naqaana oo la dhalanay Soomaali waa istaqaan meel walba inta joogto way ogtaa waxaan lagu daalinay lagu daalin had waxaad difaacaysaa in ergooyinka ay ahaayeen ergooyadii saxda ah wax doon ma Itoobiya laga keeno amxaray ahaayeen ta doonaysa waa taas aragtidaas ma qabtaa aragtida oo ka dhawaajay taas doonaysa marka ma aragtida oo Itoobiya laga keenay ay kuma raacsan saaxiibkay waa ka soo horjeedaa taas waa ka soo horjeedaa Soomaaliya ahaayeen laakiin si qaldan wax loo maamulay si qaldan ayaa wax loo maamulay waxaa la yiri Soomaali wax ku maamulada ilmo toosan uma baahno haddayba toosan yihiin wax toosan oo haddii alla ku roon yahay toosan aba la yahayba waxaan aaminsanahay wax walbana waqtiga alla ugu talagalay ayay tagi doonaan haddaba waxaa saaki meelo badan kasoo dhawaajiyey maamulo oo aan awal hadlin inay doorashadii haddii alla ku roon yahay ay biri isaa dambaba
ay haddii alla ay soo shaacbixin rabaan waxaan aaminsanahay waqtiga alla ugu talagalay dhici doontaan aaminsanahay masuq Soomaali kama dhamaado waa runtiis masuq dhaxda laga joogaa waxaa kaloo raacinayaa abwaankan caawinaya waxa weeye waxa la yiri diryaan iyo colaad ma ka jira dunida guudkeeda dulmi aabihiis waa ninkii dacar walaaqayo diraq kuma dhashaan ilmaha hadii dad u yaalaan dalka xoogaa waxaa jira wixii lagu ballamay ayaa wax ay ka qaldan yihiin waxaasna waxaan leeyahay markii dambe in waayo aragnimo laga gaari doono kow hal qodobo kala raacinaya kaasoo ah in nimanka ka soo horjeeda doorasho inay dhicin ka soo horjeeda cid hebel dhihi maayo cid kastaba ha noqdaan inaysan dalkan doorasho ay daawuta nabadoon bedel jaamac xirsilaan kale su'aasha ku weydiinaya waxay tahay haddii doorashada Soomaaliya oo hadda hakad ku yimid aysan dhicin waqti loogu talagalay doorashada ay ugu qabsan maxaa dhici kara isleedahay waxba dhici maaya maxaa dhici lahaa kale nabad baa dhacaysa dad baa aaminsan ciidamada daaqada magaalada dib u soo laabanay ciidamadu waayo ma ciidan qabiil ba soo ciidan qaran wixii doon ha ahada annagu waxaas ma aaminsan been iyo barbagaanka dadka yaan loo sheegin dadka yaan la kicin ergadan amxaaran ma ahan talyaanina ma waa Soomaali waa qabiilkii ay ka dhasheen kursiga ninku doonaya markuu waayo wuxuu doonu ku sheegi karaa ma fahanto horta adar marka dadka yaan been loo sheegin dawladdu markii hore aad ka soo horjeeday ma difaaci jirin laakiin hadda dawladdii baa difaacaysa mowqifkaaga maxay iska beddelay dawlad la'aan adar waa ceeb waa dhibaato dawlad la'aan anagu dawlad baan rabnaa mowqifkaaga maxay iska dalku dawlad buu rabaa waxba iskama bedeleen mowqifkayga dalku dawlad buu rabaa talyaaninaha xukumay anagu dawlad baan rabnaa waka على ليه دولة خير قطع المشار الوصية أنت تسمع كذي مشار الوصية كو مشار كلاسية وكو حبد كوريدة أنا حبد بقى كوريدة هذا العاقي يقول لي أو كوريدة وعلي هل والبنيكي كوريسات شبيه دولة واحد هذا نيكي مشاركة قاط أنت هذا مال كذي أنت هذا كله كم بارشدة وكا مثلا أن الدولة مجالات كوسفرتي ضل ضيب بدنا نمتي أو يبغى دوين كم رأي رصاص وقت قاضي بقى كلا هذا ساعد ضوء بعد ما دفاعي سيادي عيدا قنصاص وروح وياه محا حالة سليدة هذا روحي انت ساعدي ساعد مات وكا لكن تدخل الله ترسمها تدخل قفك ساعدي ساعد مات اللي ما عليك وبحال يا دي لي تدخل سيده wax u socdaad waa kula saxaysan si fiican bay wax u socdaan nabad bay wax ku socdaan doorashadu waa socotaa waana dadban tahay waa sida saaxiibkay sheego ilmo toosani ma doonaa la yiri waxa ihda naga keenaya waa dadbanaanta kulanka lagu casuumay oo tashiga qabanayaan midowga musharaxiinta maya haddii lagu wacmo ka qayb galaysa sidaa baan dhihi haddii lagu wacana oo ka qayb galaya waxa la dalkana dan uma tiin dadkana dan uma tiinayna daaya waka maxaad ku talinaysaa oo arrimaha doorashooyinka la xiriira waxaan ku talinayaa nimanka maamul goboleedada doorashada qabanayo ilaahay inta ka cabsataan oo rabbigiina dhinaciina u tirataan dadka u cadaalad sameeyo waxaa kaloo ku talinayaa nimankan musharaxiinta isku sheegaya musharax ma tihiina mucaarad baa tihiin yaa weli ninna musharaxnimo ma qaadan waqti musharax ma soo bandhiga farkirkiina laakiin dagaal ha ku baaqina weliba xaal ka bixiya dagaalka aad ku baaqaysaan Soomaali ka xaal siiya saasaan leeyahay odayaasha waxa lagu eedeeyay inay taybkiina colaadda iyo dhibaatooyinka dalka ka jira been weeye oday iyo culimo midna dagaalka ma kiciya oday waxbuu dabiyaay wax ma kiciyo علمنا وحبي دميساي وح ما كعس wax kicinaya waa nin lacag shisheeye soo qaatay oo la yiri dalkaaga foodla kiri oo qandaraas soo qaatay kaana ma yeelin maxaad ku talinayd adeer waxaan ku talin lahaa in dalka nabadii la raadiyo dhan kastaba ha noqotee aan culays damba uma baahno dalku in dalku hadda wixii ka dambeeyo badbaadadiisa laga dhigo doorasho intaas ku talin lahaa waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliyay nabad Soomaaliyay nabad Soomaaliyay nabad midnima ina deeqde nabad baa ina deeqde colaadina ma deeqdo ya ragga wax soo dooranayo cadaalada ka shaqeeya ragga la dooranayo cadaalada ka shaqeeya intaasaan ku soo gabagabeynayaa anigu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudan akhyar inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan ay gaar ka oo kala socoteen telefishinka M24 TV xaruntiisa magaalada Muqdisho waxa marti ku ahaa سنة ردين كوجو شجعي برنامج كان نبضون بدل جامع حرس لانجري وكمل أنا نبضون هذا الصوماليات يصير أكلنا نبضون موسى أو سنة قيب كها برنامج كان وأنا كوفلان قينيني أريمها الدور شو ينك مدمدو كحلي يعني كده حجرات دور شو الصومالية
cabdiraxmaan waabire ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay dhanka kaamiradan waxa waa saaxiibkii axmed intaan barnaamijkan la mid aan ku kulmi doono sidaa ay nabadgelyo